لا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. kusodhawow Som Talk. waxaa rabay inaan ka hadlo xadiiskan inay maalin kasta xadiis na share garaystaa rabay anigana ka faa'iido idinkana ka faa'iidaan sida nolosha hadda ku jirto adduunkana si oo nolosheena hadda aan ku jirno oo maaragtay 2021 hooyo gabar Soomaali qurbo meel kasta qof joogo uu dareemi karaa iyo sida qofka uu ugu tadabburayo xadiiskii aayadaha soo nolosha maanta ku nool ugu saracsan nooga tagay soo xadiiskanita 40 waa soo xadiiska u horeeya waa 40 Imaam Nawawi rahimahullah kitaabkiisa waa Ilaahay ajraha ka siiyo So حديث it goes عن أمير المؤمنين بالغوري and ابن حفص عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال حين سمعت وحامق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات أعماش ونيات وإنما لكل امرئ ما نوى قف كستنا وحو حليا وحو نيودو فأسقناد وحو نيودو فمن كان هجرته قفك هجرتي ساعات إنه for the sake of مركز وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لقي هجرونا مدينة العالم مركو اسكت قانعدو وهذا وانا أرقنا نولش وحيتا قفك مركو مالك حيان كعايو ومالك aadayo oo nolol idil ku jiro uu ka tagayo ama hadaa soo qaxday waxaaseeto sabab kale ku soo qaxay laakiin marka meel u socotid niyad ba waxba niyadaada aad niyeysanaysaa maaha marka waxa laga hadlayaa dadkii maka Ilaahay dartiis u aadayeen dad waxa ku jiro oo sababo kale u aadayeen laakiin even though qofkan uu maka aaday kana uu maka aaday midba niyadiisi baa loo xisaabinayaa iyo mind maskaxdiisi wax marka uu sababta u ahayd uu ku go'aansaday marka nin baa jiray oo maka uu aadayay inuu maaragtay uu haweenay uu jeclaa iyo inuu raadiyo so markaas waxay English motivation waxay markaas wada marka way ka duwan tahay maaha so faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasuulihi qof waman kana hijratuhu ka ahaato sababta u baxayo ila lidunya yusibuha inuu adduunyo uu soo helo أو امرأة ينكحها أم هوين أسو قرسدو فهجرته هجرة سحو أهاتي إلى ما هاجر إلى وحي مركا أباحي حارو أنت إنك حدايو أنا كمسلمة نحي وحان أنا على ما آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلى الدنيا حسنات كنسي آخر حسنات كنسي عذاب كان نقدر عن مركا ميل آدي أو حسمينيسد adduunyada maaha waxaan u aragno waxa macna leh adduunyada waxaan u aragnaa jidkeeni na geynay yoolkeeni iyo meeshaan u socono marka saas u aragnaa inaan nolol adduunyo mid aakhiraba aan wada helno laakiin midan qofkaas qofka meesha ka taga muslimka Ilaahay wuxuu uma ina caabudno sama so taasa qaadanayso muhiimada koowaad taas daraadeed baana keenaysa inaa maaragto wixii diintaadii aakhirada adduunka dhibaato u keenayna ka tagtid laakiin pure intentionka marka muslimka waa labadiiba waa win-win ma isugu jiraan marka qofkii Ilaahay dartiis uga tagay inuu Ilaahay maaragtay sidoo raalkiisa sameeyo dan niyadiisa saas Ilaahay u xisaabinaya ka dhiganta so waxay ka hadlaysaa halkan waa referencigii cidii warisay xadiiskaasayto so maxaa waay niyada maxay niyadu muhiim u tahay waxaan rabaa inaan idin tuso muxuu ahaayo
niyadda maskaxda hadda waxyaabo aad looga hadlaa jiro oo hadda xitaa dadka casriga ay ogaanayaan inuu qofka intentional waxaa lagu leeyahay intentional ka ahaw what you do like ha iska noqon qof oo reactionary ah. reactionary waxaa waaye inaa waxaa markaa sameynaysa aad iska samee adoonan qastin wixii maskaxdaadii soo diyaarinin inaa noqotid uun. marka waxay noqonaysaa waxyaabo badan qofka noloshiisa ka mid ah inuu markuu rabo inuu sameeyo inuu u qasto oo uu ka fikiro. mindfulness marka waxaa lagu leeyahay momentiga ku jir, ka fikir, wax kastoo sameynaysid si degan uga fikir. xadiiskaasna haddaad qaadato noloshaada everyday saaka markaa soo kacdo waxbaa niyoonaysaa inaa acmaal fiican samaysid, inaa maanta waxaa hawlihii aa rabtay inaa samaysid aa dhamaystiratid, productivitygaaga waxaas dhan waa niyeysi wey. niyadaasaabad ku socotaaba maskaxdaa ka socotaa mugta wax kasta marka waa niyeysi. sida waxyaabaha qaarkood oo kale xitaa mindfulnesska inagu aadinayso waxaa inaa niyadeena ay wax kasta oon sameyn inay niyadda kasoo fulaan waaye, inay niyadda ka yimaadaan. marka haddaana niyaddii aanu ka keenin dhibaatadeeday leedahay. haddaaba qof muslima tahay waxaa lagu leeyahay acmaasha aad samaysid. markan xadiiska wuxuu isticmaalaya example oo inuu ku tusaa qofba wuxuu niyoodo inuu helaayo, laakiin camal kasta inama alacmaalu binniyaat. xadiiska saasoo ku bilowday acmaasha aad samaysid waa niyadda. marka niyadda hagaajiyaa lagu leeyahay acmaashaada si u hagaagto. mindful ahoo waxaa sameynaysid sidii ay acmaashaada u hagaagto. waxyaaba waxaa jiro maanta haddaadan ka fikirin maskaxdaada shaydaanaa jiro, bini aadanaa jiro oo ku waswaasinayo yaa alladii yuusuf fii suduuri nnaas ayna qalbiga ku waswaasinayo. marka haddaa waxaas marka ay wax kastoo kugu soo dhaco aad iska ahaato qof maanta maskaxdiisa marba meel iska heebaabayso wax isaga fikris, waxaa lagu leeyahay driver seatka gal. acmaashaada waa niyadaada. kursiga gaariga horey ka fariiso, maskaxdaada adiga horey ka fariiso, wad niyeyso wax kastoo sameynaysid. ma fahantay qof iska heehaabayo oo hawadaas marba dhinac u bitinaysa ha noqonin. so acmaasha waa niyadda hagaaji. niyadda acmaasha way hagaagaysaa. qof waxaa arkaysaa qof kastay ku dhacdaa aniga laftarkeyga haddaa marmar waxyaabaha markii wax lagugu soo dhaho waxbaa lagu soo sheegay ama waxbaa kusoo wajahay, haddaadan joogsanin, haadan neef qaadanin, ilaahay ka fikirin oodan dhihin okay maxaa soo wajahay, okay bal logically aan kala fiirino, niyadda bal hagaajino. intaan wax ku kicin aan niyadda hagaajino. waa inaa wixii fiirisid, malada kugu jirta waa inaad saxdid, wixii oo aadan u haysanin xaqiijin aad xaqiijisid. yacni waxaa lagu leeyahay qofku markuu wax reactionka oo kale marka wax sameynaysa actionaa samaysa inta waa acmaal. intaada action sameynin niyadda sax marka hore ka fikir haddaa muslim nahay xitaa xadiisyada waxaa jiro go-aan markaa gaaraysid waa processana loo sameeyey oo ah waa xadiis kale taasna waxay aayado iyo support garaynaya decision go-aan gaarista waxay leedahay jid loo maro oo diinta ay saxdaya jiro oo ah horta marka hore inaa maaragta of course camalka samaysid aad niyadaada hagaajisid. yacni hadaad first adiba is hagaajinaysid wa amruhum shuuraa baynahum, amarkaaga waxaa kala tashanaysaa dadkii oo kugu dhawaa, dadka fiican, dadka wanaagsan. aayadihii ilaahay baad maaragtay aad ku salaynaysaa iyo xadiiskii. qofkii nasteexa raadsanaysaa, dadkii aa fikradahoodii iyo sida aad kula saxsan tahay baad ka yara sheekaysanaysaan. then waxaad sameynaysaa go-aankii wa amruhum shuuraa baynahum. waad istikaarinaysaa, waa salaada tukanaysaa, ilaahay maaragta aad kala xaajoonaysaa. ilaah waxaad dhehaysaa hadduu amarkaanid uu khayr yahay, khayr li fi diini, diinteeda nolosheeda iyo end resultigayga ilaah u isa khayr. hadduu khayr ii ahayn ilaah aniga adi amarkaan nakala geeye, hadduu khayr ii ahayn yacni markaasaa dhahdid. marka waxaa lagu leeyahay faidaa cazamtum, haddaa go-aan gaartaan markaa kadib idinka waxaa dhan soo samayseen dadaalkeedii la imaatay, fatawakal cala allah, ilaahay tala saaro. wixii markaa ka yimaadana
oo kugu dhaca haddii xitaa marka u egyihiin wax aadan sidaa rabtay ahayn ama aad ku fikiraysa ilaa maxayri وعسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا فهو شر لكم marka waxa laga yaabaa ilaahay yiri wax inaa marka jecesha laga yaabaa ee shar ku tahay waxa marka nacaysa inay khayr ku tahay marka ilaahay waa caaqibatul umuur garanaa wax kasta ku dhamaanayaan adii shaqadaada moo ina maanta dhan ilaahay wixii amuurtiisa gacantiisa ku jira maanta dhan anxiety iyo disorder iyo wax maskaxdaadiiba meelaha ay haabayso marka waa inaa niyadii aad gacanta ku haysid aad dhahdid sidan aad markii aysa laakiin haddaanu saa samayn waxa noqonaynaa trauma socoto go'aamadan gaarinaa trauma dhibaato nagu keenaa iyo xanuun iyo maaragtay baqdin iyo shaydaana jirin nafaa jirto marka waxaan ka wadaa inama alacmaalu binniyaat waa wax balaaqa dheer waa waxaan u baahanahay inaan ku tadaburno waxaan u baahanahay inay nolosheena sugto ma fahantay so haddaan ka hadlo xaggan hadda dad kastoo adduunkan ku nool kole waxay raadinayaan si ay noloshii ula jaan qaadaan soo ma hadduu marka qof waxyaabaha qadarta ilaahay wuxuu kuu qadaray marka waa inaa raali ku noqotid ilaahay wuxuu kuu qadaray waxaan rabaa inaan dhaho waa sida ugu khayrka badan xitaa haddaada u arkin markaasito waxyaabaha ayna iimaankeena yaqiinteena ku saxna inaan ka saxnayna ka mid tahay inaan ku raali noqono ilaahay maaragtay go'aamadiisa adii markii aad dadaalka la imaan kartay la imaatay inaad niyeysatid niyey ku dhammaanayaa ogoyaa wixii niyad ku bilowday niyey ku dhammaanayn inaad niyeysatid oo dhahdid radiitu billaahi rabba ilaahay baa ku raali noqday ilaahay wuxuu marka end resultigu isiina alxamdulillah waa ku faraxsanahay because asaga baa xikmadda garanaya wax kasta anigu ma ogi aad samid qof muslimaan nahay samidka marka laga hadlayo ilaahay isku dhiib markaasito nolol macaan oo sacaado leh marka raajici marka inaa markasta raali ku noqotid ilaahay wuxuu ku siiyay maaha inaa niyeystid oo waxaan waa khalad in igu dhacdo ama waa ciqaab ama waa ina saan ugu raali noqon karo markaas caqiidada shaydaana kula cararayno laakiin haddaa u ogaatid xitaa waxa marka u aragtid nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam amarka muslimka mu'minka la yaabu yiri hadduu dhibaato ku timaado khair hadduu shar ku yimaadana khair hadduu dhibaato ku timaado wuxuu dhahaa alxamdulillah yani ajru helaya hadduu khair ku yimaadana alxamdulillah haddii dhibaato ku timaadana wuu ku samrayaa saasta ilaahay ugu dhawaanaya khair u tahay marka yani waxaan ka hadlayaa anaka waxaan taaganahay waa meel sacaado ilaahay waxaan ka hadlayaa dadka oo dadka adduunka nagula nool oo muslimiinta ahayn iyagaba nolosha way nagula jirab yihiin way ku jiraan ma fahanta laakiin adi ilaahay baa haystaa hadii iyaga ilaahay haysan xitaa waxay isku dayaan inay la yimaadaan waxyaabo xikmad ku salaysan oo waxay dhahaan caqliga galay sida hadda waxyaabo waxaa arkaysaa mindfulnesska laga hadlaayo qofka inuu ka hadlaayo mindfulness iyaga waxay helaan adduunka waxay ka helaan rewardkeeda marka ilaahay ma dayaco dadka qofka hadduu wanaag sameeyo adduunkaanito aakhire xitaa hadduu wax ku helaynin adduunku ilaahay ku siinaa ajirkiisii darteed because aakhire wax ma ugu horey mogta laakiin muhiimadda waxaa marka inaa ogaatid nolosha casharada anaka muslimiina nahay haddaan diinteeniya markaa ka fogaanay ama cilmigeedii baran weyne cuduradii kalaa nagu imaadeen dadkaasaan wax la wadaagnaa markaas ma fahante laakiin inaa unique diintaaneeto oo alyawma akmaltu lakum diinakum diintiin oo idin dhamaysta waradiitu lakum islaama diina buu ilaahay islaamaana naloo ka raali noqday inaana ku raali noqonana waay waxaa jirto marka toolba mindfulnesskan ka hadlaya oo definition on websiteka kasoo helay day akrinaya waxay dhaheen niyadda xadiiskan waafaqsan waa waxyaabo badan oo yani kala duwan laakiin isku meel ku wada bay ka hadlaysaa niyaddu waa cajiib mogta waxay dhaheen maskaxdaada inaad tababartid attentionkaaga meesha aad focuska saari lahayd working memory bay dhahaan
working memory waa markasta maskaxdaada meesha ku jeedo unbaa adduunkaana arkaysid indhahaaga dhagahaaga maqalkaaga iyo mindigaaga meesha u jeediso unbaa u ah experience marka xadiiska wuxuu ku leeyahay inama alacmaalu binniyaat niyadda ku jeedi meesha saxda ah saad u heshid waayo aragnimada saxda ah ama inaa u bandhigmatid wixii sidii ugu saxsanayd may fahanta nolosha ah so maxaa jiro so waxay dhan attention training wey attention training waxay kamid tahay mindful maxaa waay nabi muhammad sal alay wuxuu ku leeyahay inama alacmaalu binniyaat attentionkaaga hagaaji meesha saxdana ku hagaaji cultivation of qualities of the heart marka qalbiga iyo way isku xiran yihiin iyo mindiga waa wax oo mind's heart connection baa jiro waana tu yiri nabi maxamed sal alay wasalam jasadka waxaa ku jiro cad idaa fasadat jasad kulle hadday fasahaado jirka dhanaa fasaado وإذا صلحت جسد كل جرك إنها هجاجة مركا definition كلا بعض السيان وقلبك موجودة وحي كا أي سوير يساوي دهين even واحد سويرين يسنو لسه أو أركيس دم perception كاجي يسده أو أركيس بي كو أدنته so محاواي مركا قفك أو mindfulness كسمينا يدهين محاواي لقربا إنه iska saxo waxyaaba labadu waxay sheegeen waxa waaye waa inaad horta because markii aad inama alacmaalu binniyaat lagu leeyahay waxaa waaye sid fariiso fikir niyadaada kala shaandhee wixii kala fiiri ha iska noqonin qof oo marba meel uu shaydaan iyo dabeysha iyo waayuhu dhinac u tuuraan noqo qof ishagayo oo waxaasoo waataan shalay ma dhahay in la cibadan futana talaqu dunya wa khafu fitana ja'aluha lujata wattakhadhu salih al-a'mali fiha sufana yani imam nawawi rahimahullah oo dhahay gabagu jeclaa akhrin jiray ilaa adoomo futana san u bartay waxa waaye aqli iyo xikmad iyo wax kasoo saxiiba jiro طلقوا الدنيا وخافوا فتنة أدونكي بفران في النادي سينا ويكبقين يعني attachment كانوا قلبي إنه أدونكو دقيم إسكفران فريدوم بهلين بكودا خافوا فتنة في النادي دي كبقين وتجعلوها لوجدهم حقيقتين إن ينتهي بط ووليبا كاسن واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا dusheedana waxay ka yeeshaan xamaashi wanaagsana inay delivery ku sameeyaan ay ka badbaadiyaan so qofka marka waxa laga rabaa marka fikiraysid yani inaad bay si aad go'aansato u fikirtid ha iska fikirin oo qof oo maxaan sameey maanta dhan ha iska ahaanine qof qasda wuxuu ku fikirayo noqo ka faa'iideyso maskaxan Ilaahay ku siiyay marka waxay leeyihiin mindfulness waa inquire practice examining specific mechanism of the mind waa adoo maskaxdaada wixii kusoo dhacay wixii aad maaragtay intaad wax isaga soo dhici lahayn wixii aad kala soocaysid oo maaragtay aad isla xaajoonaysid because siban kusoo korna qofba wuxuu leeyahay si noloshiisa maaragtay ama uu kusoo koray ama soo wajahday waxaas dhan ma fahantay marka waxyaabahaas dhan waxyaabo badan oo go'aamada aad gaaraysid ama saad u fikiraysid aad jiraan oo ay ku xiran ama si aad u soo kortay ama si noloshaada dhibaatooyin aad soo martay ama waxyaabahaas ay saameynayaan markaas waxaas waxaa waaye hadaa wax ka baqaysid inta ama qof inta wax kugu yar ku xanaaqaysid ka fikir maxaa u xanaaqayaa qofkan ama maxaa sidaan aan horta uga baqaa markay sidan tahay tolo maxaa igu keenaya abdullah masar inaad ka fikirto xalagaaba inay jawaab yar noqoto ama anoo yaray sidaan ugu dhacday ma waabaan dhibaatada soo maray waxyaabaha caynkaas yani markaas wixii aad ogaatid waxa keenaya
oo ama baqdinta ku keenaya ama cabsidaas ama go'aamadaaseeto aad sameynaysid ay noqon waxyaabo autopilot bay dhahaan wax iska socdo iska sameynaysid hadday kan ku dhacdo kan baad sameynaysaa default reactions bay dhahaan yacni waxaad sameynaysaa sibaad u dhaqmaysaa oo iska ah automatic oo iska dhacaysa leeno si waxa u dhaqmaysaa iska dhacayso adoonan ka fikirin ama waxaad dhehaysid ama saad arrinka u wajahaysid ama yacni adoonan ku base garaynin waxa laga yaabaa inay saameynayso si ama usoo kortay ama lagu soo xumeeya ama waxyaabo badan ama maqnaansho qof aad tabaysa ama qof ku xumeeya inay ay saameynayaan sida waxaan u wajihi lahayd hadda marka waa inaad kala saartid maxaa baqdinta intay ku salaysantahay maxaa i saameynaya see waay sida saxdaa maxaa waaye you know oo aad baqdinta oo badan oo weliba haddaan soomaalinayn aan ogeyn xitaa waxay noogu timaadaa sida xasniga iyo waxaasito because dad waxaan nahay wadankoodii aada loo soo dhibay iyagiina haddana qabiil iyo dan dagaalo iyo barakac iyo waxyaabo badan oo dhaqankeennii saameeyey ma fahanta ayna soo mareen qof kasta waxaa laga yaabaa wax inay markaa saameynayaan marka waxa ku saameynaya waa inaad ogaatid sida waxa soo marta ay ku saameynayaan waxa hadda noloshaada aad ku jirtid ma fahanta marka maadaama aadan waxaas haddaa hadda isleedahay hadda waxaa rabaa inama alacmaalu biniyaad xadiiskaas aan ku dhaqamo waa inaa marka aad dhahdid marka hore ma fududa runtii ma fududa because marka hore waxaa laga yaabaa inaad isleedahay inay kaa tahay waxay u baahan tahay waqti badan inaad gelisid iyo ilaa ay sidan cusub oo wax u wajahaysid ay ku noqdaan dabiici sida cusub oo nolosha u wajahaysid inay ku noqdaan dabiici haddii kale sidii hore baad relapse may dhahaan dib baad u dhacaysaa oo sidaadii caadada soomaalida waxay dhaheen nina caado ma baajo bahalna ceeri ma daayo waxay ka wadaan waxay soomaalida psychologist inay PhD bay ku haystaan maamaha waa that's how you know soomaalida highly intellectual inay yihiin dad aad u maskax badan oo noloshaba soo dhammaystiray oo gunaanad ka gaaray because waxaa ogaanaysaa wuxuu ku yidhaahayaan nina caado ma baajo bahalna ceeri ma daayo marka waxyaabaha soo caadaysataa jiro oo si aad u fikirtid si aad wax u samaysid oo aadan weligaa go-aan ka gaarin waxaanan soo caadaystay ma saxba ma khaladba sideen u hagaajiyaa sideen u saxaa oon caado cusub oo saxsan ula imaadaa waa isbaana umalaynaa marka waxaa ka wada caadada cusub ee saxsan waxay u baahan tahay tababar waa inaad nafti dib u tababartid maskaxdaada dib u tababartid si kastoo kusoo kortay xitaa ama nolosha ay kugu adkeyd hore waa inaa hadda dhahda hadda waan qaangaarsanay qof weyn baan ahay sideen maskaxdayda aniga hadda u tababartaa oo ani hadda aan isku saxaa oo aan nolol cusuba caadaystay iyo wax macaan iyo nolosheedii sidaan la rabo ay u noqotaa oon si maaragta fresh u bilaaba marka wixii ilaahay isoo marsiiyeyna aan ugu samraa aan casharo uga qaataa aan maaragtay saa ina u saxna waaye marka waxaan dareemayaa marka xadiiska maqal marka inama alacmaalu binniyaat waa saakasa soo kacday moodkii attitude-kaagi sida aad u niyeysatay maanta inay ahaadaan markii wax kusoo wajahaan sida aad uga baaraan degi lahayd sidaad u wajihi lahayd intii aad si caado aan saxsanayn ugu wajihi lahayd oo waxaad caadaysatid waxa saxda ah sida ugu caafimaadka badan oo waxaan loo wajihi karayo insha allah intaas maanta fikradeyda idin soo gudbinaya ilaahay anigana ha igu anfaco idinkana ha idinku anfaco inama alacmaal binniyaat hadda kadib markaa ka fikiraysa waxaa rabaa inaad si weyn uga fikirtid oo noloshaada maalinka maalin waqti ka waqti daqiiqad ka daqiiqad inay saxdo oo qof isla jooga oo isjecel oo maaragtay ilaahay tala saaranayo maanta wiilkayga la hadlaya waxaan dhahay dhowr waxaa jiro qofka biniaadanka markuu nolosha waxaad
you do wixii marka adiga sida ugu fiican baad wixii u wajahaysaa hadday imtixaan tahay hadday homework tahay sidii ugu fiican baad u wajahaysaa ilaahay baad wixii ka tala saaranaysaa wixii natiijada soo bixi doonta adoon ilaahayna baryaysid talana saaranaysid isku dhiibaysidna 100% because haddaad saa samaynin qof control ama waxaa noqonaysaa wixii raba inuu xukumo ama obsessive oo wixii maaragtay isku macangagisnimo ula dhaqmaayo ilaahay u dhiib taasno dadaalkaaga la imo ilaahay u dhiib and then ilaahay wuxuu markaa ku qadaro oo natiijana ahna alxamdulilah wax wanaag baa kasoo baxay ama ha ahaato waayo aragnimo ama ha ahaato cashara soo baratay ama ha ahaato balaaqo ku dheeraatay ama ha ahaato xikmad ku soo kortay ama ha ahaato inaad adiga naftaada aad waayo aragnimadaas aad ku baratay naftaada dadku waxay dhahaan naftaada inaad baratid ba adduunka ugu macaan baa idin sheegaya naftaada inaad ku mashquulshid ood baratid naftaada cidda ay tahay iyo ciddaad tahay qabiilka moodaya naftaada say tahay iyo naftaada siyaabaha ay u dhaqanto markii waxyaabaha qaarkood soo wajahaan inay si saxa tahay iyo inay si khalada tahay maaragtay inaa ogaatid waxyaabaha aad ku fudud inaad ogaato waxyaabaha u baahan tahay inaad naftaada ka saxdid oo caado cusub samaysatid ood ka gudubtid ood ku naftaada ay growth waxay dhahaan aad ku حكمة إلهي محمود ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قفك حكمة إلهي سي خير بدن بسي حكمة إنا راد سننا واعي يا حكمة نجدك إلهي نحير ويرد ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة جدك إلى وير سي حكمة قصريسا يوناق مرك إن شاء الله أنت سألنك أوهي يا English نوكسو بين كرا لكن ساسن كفكرة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.